السلام عليكم. waxaan u soo galay maantii meeshaan arrin ugobigu ah runtii aan ogeyn markii macnaha hore waa arrin maaragtay xoogaa fajicisa igu riday oo filan waa igu noqotay. waa arrin ku saabsan qabiilka Isaaqa. waxaa la yidhi warkii hore war soo dhaaf waa yeel uur laha yimid. ma aqaan waxay u dhaheen saas koob, laakiin waa maaragtay mahmaha jirta waaye. waxaan rabaa inaan ka hadlo soomaalinimada qabiilka Isaaqa la yidhaahdo. sababtoo ah sidii loo haystay ma aha, waa iska beddeshay sheekadu. sheekadu dhinac kale aaday. aniga ahaan waxaan u haystay Isaaqa, waxaan u haystay inay yihiin dad Soomaaliya runtii oo dir ah. laakiin muddooyinkan dambe waxaa soo baxday oo weliba arrin maaragtay cusub ah in Soomaalida ay sii kala tegayso, oo dad badan oo aad ku ogeyd inay maaragtay Soomaali yihiin ee ayagu rabaan inay Soomaalinimada ka baxaan oo maaragtay ay abtirsigooda dhabtaa sheegtaan. marka taas macnaha waa mid ka mid ah arrimahaas maaragtay dhacaya. waxaan anigu mar walba ku doodi jiray, xataa ayaga kula doodi jiray inay yihiin dad Soomaaliya oo maaragtay ii sheegeen Soomaali ku abtirsada. laakiin maalin dhoweyd ay xoogaa arrintii maaragtay ay si kale ila muuqatay oo igu kaliftay inaan baaritaan dheer sameeyo. bal ayaga maaragtay arrintan waxay uga dan leeyihiin aan ogaado. arrintii waxaan ogaaday inay leeyihiin waxaan ka nimid Sheekh Isxaaq. waxaan dhegaysanaya video 4 saacadood oo nin Axmed Caaqil ma la yidhahdo qoraa ah, askartii Soomaaliyana ka mid ahaan jiray sida uu leeyahay. uu qoray, laakiin soo xiganaya buugaag badan oo maaragtay ii sheegeen ay dad hore qoreen oo dad beec mushtari oo Soomaaliya imaan jiray, muxuu ahaa dad yaqaana sheekha laftigiisa ay qoreen. marka waxay leedahay videohaas wuxuu leeyahay ama ay leeyihiin dadkaasu, annagu waxaan nahay carab, waxaan ka soo jeednaa cali bani abi daalib, waxaan nahay ahlu beyt uu ahaa macnaha sheekaasu. waa sheekh meel walba laga soo eryaday. waa soo 10 jira maaragtay ay ku bilaabatay qaxitaan oo uu ka qaxayo
maadaama fidnadii ugu weyneyd ee muslimka ay dhacday oo ay muslimka isku haystaan yaa bedelaya muxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiguna maaragtay ninka ugu dhowaa uu ahaa abubakar sadiiq saasna uu khaliifkii koowaad ku noqday arrintan ay dhaliyeen nin yahuuda uu dhaliyey maaragtay oo u warramay qoladan maaragtay ii sheeg cali xaggiisa xigsanaysa oo dhahaysa annagaa ahlu beyda oo annagaa maaragtay dhaxalka iska leh sida saldano maaragtay camal taasna ay ka soo horjeesteen dad badan oo muslimiin oo halkaas ay fidnada ugu weyneed ka dhacday ninka la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba oo bagac caraba leh laakiin yahuud ahaa oo yahuudda yemen ka timid ahaa oo arrintaas sameeyey marka halkaas fidnada ugu weyneed ay ka dhacday oo muslimiintii inay isku eryadaan qaarna ay leeyihiin caliya iska leh qaarna ay leeyihiin abubakar maaragtay ii sheeg nebiga saaxiibkiisa ahaa oo asagaa maaragtay noqonaya khaliifkii koowaad arrintaas marka ahlu beytku waa nimanka hadda kolley shiicada noqday saan u malaynayo nimanka xasan iyo xuseen maaragtay ii sheeg dhahaya waa ku abtirsannaa waxaa waaye waa nimanka shiicada noqday laakiin shiiqan sheekadiisa sida ka muuqata waxaa waaye waa sunni suu maaragtay sheekadiisa ka muuqata sunni oo weliba suufi ah suufiyaddan maaragtay ii sheeg nimankan iska welimaysto oo dadka maaragtay xoolaha weydiisto oo haddaan la siinin muxuu ahaa ii sheegeen waa ku inkaarna dhahayo oo muxuu ahaa ii sheegeen markay ay muxuu ahaa ay rabaan inay wax baryaan ama maaragtay ay baryo ay samaynayaan ay leeyihiin marka ugu horreysay cabdiqaadirow intay dhehi lahaan ilaahay adu waa nimankaas suufiyaasha oo sheekadiisay ku jirtaaba maaragtay inuu yahay dadkaas oo dadka iska socda oo dhaha annaga maaragtay ii sheeg waxaas waa helaynaa insha allah ayagoon u shaqaysan wixii calaa kulli haal adigu taas uu ila ekaa marka shiiqu wuxuu sheekada waxaa ku jirta inuu leeyahay waxaan ka soo jeedaa cali bani abi daalib abtirsina meesha waa ku jiraa oo aan idiin soo dayn doono haddii ilaa yidhaahdo abtirsigaas markaa fiirisid dhowaan la sheego kuma jirto meesha aad ay u kala fog yihiin abtirsi aad u dheer runtii marka arrintaasaa maaragtay aan rabaa inaan ka hadlo maanta isaaq soomaali ma yahay marka su-aashu waa taas haddii shiiqaas ay ku abtirsadaan oo sheekh isxaaq binu axmed say leeyihiin ay ku abtirsadaan soomaali ma yahay dir ma yahay maya ayagaaba dhahayo dir ma aha waa carabna soomaali maaha fiidiyaal badan oo waxaan kusoo sheegay maaragtay in qofka carabka aanusan soomaali ahayn oo soomaaliga uu yahay kushiti qofka kushitiga ah inuu soomaali yahay sida samaale soomaali ay ka timid soomaalida dhabta ay ka timid lama rabo dadka la soomaaliyey sida hadda isaaq oo kaleeto marka qofka soomaaliga dhabka waa qofka samaalaha ah somaalana sagaal u dhalay saan u sheegay hadda ka hor laakiin waxaa aada u tarmay inta badan waa dir iyo erir saan jeclahay dir iyo hawiye erir aada tarmay macnaha
marka nimankan mar alla markaa weydiiso aad tiraahdo warsoo nin dira maahi waa xanaaqayaan ugu horeysa xanaaq ma nihin midaa maalinood wuxuu igu lahaa korkayga fiiri ku lahaa muxuu ahaa ii sheeg anugu maxaan kuula ekahay ma diran kuula ekahay korkii aniga nin carabaan ah waa ii jeedaa korkayga waa cad yahay haya war hoy amay kuu roon tahay inaad sidaada isu qariso ya sababtoo shiiqaba markuu meesha imaanayay shiiqa meel walba horta laga soo maaragtay laga soo eriyeyo yamana laga soo eriyo oo laga soo eriyaday oo muxuu ahaa ii sheeg saylac uu yimid oo saylaca uu ka tegey harar uu tegey harara laga soo eriyey meeshaan maydh la yidhaha maydh oo gobolka sanaag inay ku taalla aan malay hadda somaliland dadka isku tilmaamaya ii sheeganayaan halkaasuu marka aan ishaaro laygu tuso ku leeyahay inaan ku badbaadayo macnaha marka halkaasaan imid halkaasaan macnaha aan tagaa meeshiyuu yimid muddo hadda laga joogo adiga waa waxaa waaye waa 1,050 markay ahayd taariikhda maanta 2022 oo miilaadiga markay ahayd 1,050 markay ahayd saas uma sii dheera waa 934 saan jeclahay sanow 934 sanana laguma noqdo bahalkii muxuu ii sheegeen laguma noqdo waddan ama dad laguma noqdo marka sheekhu meeshuu yimid waa la soo dhoweeyey gabaraa la siiyey meesha wuxuu ugu yimid niman la yidhaha magaadle oo madaxweyne dir ah oo ugu yimid marka sheekada waxaa ku jirta inay asaga la socdeen xer badan inay niman la socdeen caraba oo nimankii carabta ahaa ay ka faanayeen dadkan madow macnaha oo qaarkood ay dhaheen annagu degi mayno meeshaan waa ka tegaynaa ma rabno ilmaheennu inay madmadoobaadaan marka carab ha ku yaso adduunka wax ka xun male calaa kulli xaal shiiqan wuxuu meesha u yimid wax kale maaha waxay ahayd inuu ku badbaadayo macnaha wuxuu leeyahay waxaan meeshaan u yimid dadka meeshaan jooga inay dad geesiyaala yihiin inay yihiin dad deeqsi ah labadaba dad muslina ila diintu waa kasoo horreysay moogta asaga waa kasoo horreysay diinta oo soomaali muslin ay ahayd asaga ka hor waxaa waaye qarnigii 7 ay muslin ahayd soomaalidu oo macnaha intaan baa maaragtay carabta badi aysan muslimin oo la dagaalayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay soo gaartay magaalada saylac weliba ay diintu soo gaartay dad muslin ay ahaayeenoo markii arrimahaasan ku doorto ku leeyahay meeshaan inaan ku badbaadi doono waana isqarinayay shiiqoo waxaa waaye wuxuu diidayay in maaragtay la dhaho maaragtay carabaa tahay waxaas macnaha dadku waa u jeedaan laakiin ma rabin asagu inuu meeshuu ka yimid cali bani abi daalib inuu ku atirsado oo meelo badanoo wuxuu leeyahay waxaa la dhihi jiray sayid markay maqlaan arrintu anna waa qari jira kulaha sababtoo waaba cabsanaaba oo waxaa waaye awalba waxaan usoo qaxayna wax kale maahayn nafsadeena la soo cararaynay iyadoo nalagu eryanayo arrintaas macnaha marka saas uu qarinayay sheekhu laakiin tafriirtayda ama abtirsigayga dambe waa la maqli doonaa macnaha u dhahaya saasaa ku jirta videohan dhegaystay oo aada u dheer runtii marka saasuu marka meesha kusoo degay gabaraa la siiyey ilmay u dhashay saasuu marka uga mid noqday
dir oo ilaa haddadaaba dir dhahaba dir badan oo dhahaysa dir waaye macnaha laakiin maadaama arrintu saas ay taho shiiqi yimid uu yahay lama dhihi kara dir waa carab soomaaliyana kushitiyaa iska leh marka arrinta anugu markaa marka ugu horreyso maqlaya waxaan islahaa nimankaanu dhibka loo geystay ay xoogaa waxay rabaan maaragtay inay dadka ay maaragtay dadka waa taloobeen la yidhaha maaragtay oo inta dhibka loo geysta ka baxa dadkii ay ku jireen oo maaragtay ama ka mid ahaayeen oo meelo kala tago oo inkiraba abtirsigooda saasaa u malaynaya aniga waxaan islahaa nimanka dhibaa ku dhacayo waxaa waaye inkastoo maxamed siyaad barow dhibka uu ku dhigay oo soomaalida kale isku dhigin ayagu laakiin waxay u haystaan koonfur oo dhan inay ku dhigta oo waxay leeyihiin askaraa meeshana soo weerartay askartana waxaa ku jiray soomaali oo dhan hadda askari sidiisaba waxaa waaye lama xukumi karo askari isma xukuma isago aan dhihi lahaa askari waa la xukumaa weliba markay dagaal noqoto askariga waxaa waaye goobta dagaal hadduu amar diidda ku sameeyo dishibiliinka militariga wuxuu dhigaa in meesha lagu dilano amar diidda maba samey karin ba ayagu laakiin ayagu saasay u haystaan marka waxaan is idhi dhibkaas ku dhacay oo ay dadka dhan u xaglinayaan amay ku taloobeen oo ay u inkirayaan macnaha laakiin arrintii waxaaba soo baxday in runtaaba oo dadku dad soomaaliya aysan ahayn marka arrin kalaa soo baxda iyadana oo ah goosashada ay rabaan inay goostaan dhulkan somalilan aa la dhahaa waa ka goosanaynaa in soomaalida kale ay leeyihiin taas horta hore dadkii dirta ahaa sida gadabiirsiga iyo nin magaadlaha soo hadlayaan arkay raalli kama ah ayagu waayo dadkooda inay ka go-aan ma rabaan laakiin carabtan waxay rabaan dhulaysan lahayn inay goostaan marka waxay islahaayeen fanfana oo maaragtay dadka maaragtay muxuu ii sheeg u sheegtay inaad ka fiican tihiin oo dad cadcad tihiin oo carabo laakiin arrin kalaa meesha timid oo ah hadda saas hadday tahay see dhulku goosanay mabaliid dhulka adige dhul lagugu soo dhoweeyey yaa oo naftaada lagu badbaadiyey inaad tiraa waa goosanaa wax dhacaya ma marka doodii ahayd inay dhul leeyihiin halkaasi ku baxday waxa hor boodaya arrintanna waxa waaye waa isaaq runtii cid kale oo arrintaas wadda ma jirto hadda isaaq soomaali maaha haddaadan soomaali ahayna dhulka soomaaliyeed ma goosan kartid habartaa kuma dhacdo waxaa waaye awoodna uma lihid hatta caqlina meesha kuma haysidoo waxaa waaye maaragtay adigaas maaragtay ii sheeg dhulaadan lahayn inaad goosato rab ma lagaa yeelaya taas marka halkaas waxaa ku baxday runtii ummadda soomaaliyeed ay ka walwal qabtay oo ah in nimankaanu xaq u leeyihiin dhulka xaq uma laha wax xaq ay u leeyihiinba carab dhulka xaq uma laha waxaa ka mid a daarood waa carab xaq uma laha nimankan la yidhaahdo muxuu ii sheeg reexamarka ayaguna waa carab xaq uma laha isxaaq waa carab hadda xaq uma laha inuu soomaali goosto ka hadla xataa waayo nin la soo dhoweeyaa tahay oo asxaan loo falay martina wax ma goosan karto ha ka yaabin qof inta gurigiisa loogu yimaado la leeyahay qaybaan ka goosanaa gurigaada anigu qaybtaasan degaa mana igu imaan karti no wax dhacaya ma jiraan maaha taas maanta saad xaq idinkuba sheegteen ma aha soomaali kama mid tihiin runtii waa ladin soomaaliyey laakiin soomaali kuma doodi kartiin soomaaliyan haddaadan irir ahayn sideedda kalamaba soo geshid laakiin irir haddaadan ahayn ma soomaali ka mid mahay halkaasi kuugu dhammaatay maalinka wax alla wixii maaragtay ii sheeg aada islahayd hel
halkaasay kugu dhammaatay oo adigiyaaba isqarin haddaa isqarin lahayd sida shiiqa uu sameynaya waxbay aalid moogtay inkastoo markaasna aadan heli lahayn oo waxaa waaye sheekadan sheeka soomaali ka weynay tahay haddana doodaadii halkaas ku dhammaatay dhul inaad leedahay no ma jirto dhul aad leedahay ma jirto martiyaad tahay oo lagu soo dhoweeyey 934 sano dhul laguma yeesho marti edeb la noqo sida hadda ka hor baan ku yidhi daarad marti edeb haddaa marti tahay marti edeb la noqo haddaadan noqonin meeshaad ka timid aa lagugu celinaa runtii barya maaha sheekada anuu runtii ma ogeyn waa ka xumaa markuu maxamed siyaad barre maaragtay xasuuqaya laakiin hadda haddaan fiirshay waa laba carabo xasuuqaysa wax dano annaga naga gala male wax dana oo nooga jira haddaan nahay irir ma jirto adinkaas xasuuqay xaqaan runtii markaas feeraha ka dilaacayo mindhaa arrintan aan weli soo bixinaa la ogaa maxamed siyaad barne mid uu ka diriraya waxay ahaydba goosashada laftigeeda laakiin ma ogay waayo inuu dadka uu eryanaya inay carab yihiin oo isku meel ay ka yimaadeen ay soomaali ahayn aranti inuu ogaay lamaha malayn oo maxamed siyaad barre laftigiisa inkiri jiraba oo maaragtay carabnimada oo hadda ka hor qisa laftigeeda video kusoo sheegaa jirto oo ah yaman intuu tegey uu wuxuu yidhi bar hallay tuso maaragtay nimanka la yidhaahdo jabarti ismaaciil daarad ismaaciil iyo jabarti ismaaciil wasal dhashaa maqlay marka bal hallay tuso kaasaa loo geeyey moogta waxaa loo geeyey nimanku marka waa niman iska farsamo yaqaanoo birta buufiyaa la yidhi no soomaaliyana dadka birta buufiya tumaalaa loo yaqaano waa dad laga faana moogta wardamaahi asoo dhahayo ordaya ka soo baxaa la yidhi meesha walaalkii baacawl waa inkiraa macnaha wuxuu inkiraa wax kala baayo waa dadkaas shaqada wata shaqadoodu macnaha dhalasho markaas ma fiirinayo marka waaba inkiri jira dhig odaga marka waxaa waaye sababta ugu duulayay dadkan saas ahayd laakiin haddaan dib u fiirshay aad inuu maba ku lahayn waa ku saxnaa runtii waayo dhulaysan lahayn inay goostaani rabeen xaqaa heelinayay ka war hadday ku awood roonaan lahaayeen markaas waxaa waaye waa laga yaaba maanta inay iska lahaan lahaayeen laakiin xaqaa heeliyey marka sheekadii inaa ku dheeraada ma rabo wax alla waxa abtirsiya oo ay lahaayeenna waa idiin soo bandhigayaa waxaa waaye bal sidaas iyo maaragtay nabadgelyo haddaad videoa ka heshay kolley wuxuu iftiimiyey videohaygu waxyaabo badan oo dadku ay ka qarsoonaan anigana waxaan jeclahay sidaba waxa dhabtaa inaan ka hadlo waxa dadku ay ka hadlaan inaan ka hadlo ma jecli oo isku wada raacaan oo beenta laakiin dhabta inaan ka hadlo jecli dhabtu waxa waaye isaaq wax dhula uu ku leeyahay soomaaliya ma jirto halkaasi ku dhammaatay sheekada marka haddaad ka hesho video subscribe share like gambaleelkana fura xataa markaan video soo geliysa u ogaato marka sidaas iyo nabadgelyo